بسم الله الرحمن الرحيم. بعد صحافة هذا وما تنتين وعن كسوق قال لي حفلة كوكلا وريجاين لبده قدومية هراء قبلك موضوع مداري قدومية عصب مستر أمير وعلنا هذا وما تيه هاي قدومية هراء قبلك موضوع مستر مداري واحد بدن وسو شقeeyay waxa waaye in mudnaantiisa la siiyo ee la yiraahdo ku maadsan tahay waxaad qabatay waxaan rabaa inaan iraaho gudoomiyaha cusub ee caawad xilka la wareegayo in ilaahay xilka u fududeeyo bulshada gobolka Banaadir ee caasimadda ku nool waxaan caawa ka codsanaynaa shakhsi ahaantayda anigoo ah caaqilka ummadda Soomaaliyeed inaan iraaho gudoomiyaha Amiir inaan la shaqeyno waa gudoomiye aad garab istaagtiino gudoomiyaha waa gudoomiye nin wax bartay dhalinyaro ah soo shaqeeyay wax badan ka fahansan waxaan leenahay aan la shaqeyno garbahan ka istaagno waxa waaye cid kasta oo gobolkan Banaadir ku nool waxaa laga rabaa garab istaag waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka maqaamka gobolka caasimadda inuu dhiso waxaan naga maqan waxa waaye inaan gobolkeena dhisano horumarsano wadooyin ka dhisano bariijaan ka rabnaa iyo buundooyin iyo meelo caalami ah inuu noo dhiso waxa waa nin qurbaha ka soo shaqeeyo aad u yaqaano dhismaha iyo wadooyinka waxa waa aad aan faraxsanahay dhalinyarada caasimadda aan nahay waxaan ka soo qayb galay xafladan baaxadda weyn oo ka soo qayb galayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wasiirada xildhibaanada dhammaan waa soo dhaweeynaa muqdisho waxaan rabnaa inay u ekaato caasimadaha adduunyada ee la janqaado waxa waa anaga hadana bulshada ku dhaqan caasimadan markasta waxaan jecelnahay inay caasimadda hormarto waana soo dhaweynaa ninka hadda loo magacaabay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu soo magacaabanay waxa waaye waa ku han weyna waxa waaye nin wax badan ka bedeli kara caasimadda ee wadooyinkeeda iyo inta ka dhamaystiri karo ee guryaha iyo bilicda iyo amniga iyo wax kasta dhamaystiri karo waxa waaye doorasho u baahan tahay caasimadda maqaamkeena maqan insha Allah taala amiirna waxaan u marayaa inuu keenayo oo waqti dheer ay ku qaado doonin dadka caasimadda mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxa ugu baaqa in la shaqeeyo gudoomiyaha cusub far kaligeed fool ma dhaqdo amiir waa shaqeeyaa waxa waaye la shaqeyn u baahan yahay duqa hore meesha ka baxane waxaan leenahay waa mahadsan tahay wax muuqda qabatay maasan Mr. Madaale gudoomiyaasha dhamaan aad bilaa tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.